الله الرحمن الرحيم لك إذا الله هذا وحوية شيلان غير وية وحنا هذا مقع قرب شوكتا قبل هذا خاطبة على أساسي وحنا الخلباق وقدر الحبة سوتشيله بيلها قد قالبي ولا لها دمعوا قد قالبي وحلا له ولا ليال الباس بها بالتي حبة السوق هذا رجي وبالتي هرمركا يلقى شيء لها المقرص هاي هرمركا المركا ولا ليال وحلا له قرية كديقة هريتاس وحوي أنه كحول سدا يحول عين وقرأ تعصيرنا دتك وراها هلك فوق لتي أبا كنا وعبي وحلا له ولا ليال سوتشيا حبة waxaan kaloo halkan kala hadlayaa cuqaasha ismada gobolada iyo waxgaradka iyo dib garboodkaba waxaan leenahay arrintan socota labada bari waxaan leenahay in laga hortago weeye waxay ahayd in xilli hore la galo waxa dabooda xilligeedii inaan la gelin waxaan u baaqan ku diranaa waxgaradka culimada aqoon-yahanada iyo dadka ku sugan gudaha inay tallaabo degdeg ah ka qaadaan arrinta iyada ah ee qoolxumada ay ka dhacday magaalada Dumco arrinta waxaan leenahay waa laga gaabiyay siday ahayd loogama shaqeyn siday ahayd looga guda gelin waxaan leenahay anigoo barlamaad ku hadlaya magaca qurbo joogta gobolada Khaatumo SSC waxaan leenahay walaalayaal arrinta waan uga tacsiyeynaa dadkii ku dhintay dadka ku dhaawacmayna waxaan leenahay ilaahay haydiin booga dhayo dadkii ay ka baxeen waa u tacsiyeynaa marka waxaan leenahay walaalayaal arrinta dadka waxgaradka si degdeg ah arrinta ha u guda galeen qoliyaha labada beelood ee walaalaha ah ee maanta isu magaranaysa arrinta galayna waxaan leenahay walaalayaal qoriyaha hala dhigo loo jeesto horumar ha shaqeeyo caqligu dagaal wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho aad iyo aad baan maartay arrinta uga xunahay haddaan qurbo joogta waxaan leenahay walaalayaal arrintaas arrin qabata maanta maaha arrin shacabka la sugayeen maaha arrin runtii ka fajicisay dadka qurbo joogta weeye leenahay walaalayaal caqligu ha shaqeeyo leenahay marlabaad waxaa ku celinaya marlabaad cuqaasha ismada culimada aan ku ogeyn gobolada tan oo had iyo goraale arrimaha kan ka shaqeyn jiray nabadda oo aan hore ugu ogeyn inay nabad badan iyo arrimo badan ka shaqeeyeen arrinta tan hoos ha u galeen waxa la yiri gacmo gel jiray hoos baa loo dhaqaa arrimahan siday ahaan jireen ama dhaqanku ahaan jiray ha loo guda galo aad baana idinku tacsiyeynaa dadka ololaheena halkaa ku dhintay waana aad baana maaragtay uga xunahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu